waayahay hargeysaanay haddana markaan hargeysay oon xanuustay dhakhtarkii aan foolan kari waayey meeshaas ku silcay ayaan aabahay wacday aaboo ii kaalay aabaa ii yimi waayahay aabahay markuu ii yimi waxaad sheegtaa muxuu ahayey inantaa la kala badbaadiyay riski baan galay aad baan u xanuustay ilmuhuna aad buu igu weynaaday oo isku dulliman gaadhay waxaan raadinayay cid reerkiisii ah oo ilmaha bal saxeexataa isaguna hawadu ka maqnaa aabihii baa markaa xidhiidhi la leh oo nala xidhiidha laakiin reerka inta kale nalama xidhiidho wuxuuna igu yidhi inantii kale la dudayaan oo reerku waa xanaaqsan yihiin waxay leeyihiin inantaa kale adiguna inankan dee waxa weeyaan waad wada joogtaan reerku way noo kala hiiliyeen inantaasaa raacday waxaan ku aniguna maxaan ahay aabihii baa ila soo xidhay markaa igu yidhi wuxuu nimcaan dhale kanbaa ila joogaba insha allah baa allah ku kala nabad keeno waa kaa oo halkaa igala hadla okay aabihii garaac cid kasta garaac odaygii baa la garaacay odaygii cid kasta waa la waayay asagii waa la waayay aabahay bay warninta hala badbaadiyo anaa dhiganaya ee cidna waxbay idinma raacday inanta ii qala war inanta qala aniga saarba haddana soo had maxay dhashay alxamdulilah waxaad samaysaan aabow iminka ilmahayaani miiriya keenin waxaa dhacay ilbaa ku dhacaysaa waa sidan baa dhacaysaa kan kale baa dhacaya sidan kale baa samaysmaya marka meel la xidhaba meel buu soo furaa meel marka la daboolaba meel buu soo furaa aniga markaa go-aanaan gaadhay waxaan raxiisay hadda suntii ay ugu jirtaa maba hadli karo markuu aabahay hadalkii la kor taagan yahay iminka inanka saas buu yidhi saas samee haye waaye anigoo mihi qof xor ah ma ihi intii keligeed isku taliso baahideeda daboolan kartaa ibni aadan waxaa isku xidhaanaa waa baahi waxaa ibni aadan isku xidhaa waa baahi asaga markaan idhaahdo waan hadlayaa waan soo dhiganayaa waan sheegayaa wuu ii hanjabaa oo wuxuu igu dhahaa ma rabo inaan waxyaabaha qaarkood halkan ka sheego waan oga inaad si kale ula kacaysaan kor baan uga baxayaa nimcaan oo noloshiisa ku jiro qarinaya arrimahaas oo dhan baan balanbalayay baan kabna xidhnaa kabna laadlaadinayay kabna aan xidhnaa kabna laadlaadinayay waa qaatay oohinta bilis oohinta commentiga iga daaya commentiga waxa meesha live-ka la igaga xidhayaa oohinta iga daaya bilis haddii kale commentiga ha la iga xidho okay waxay sidii waxay ahaato aniga go-aanaa la gaadhay waxaan kuu sheegaa walaalo anigu baan kuuri keligii waan aamusay ilmaha yar halkaan la galaa maanta yaa dhalay goormuu dhashay yaa ku guursaday goorma ma ilmo yar baan qolku koriyaa miniin kuma korinaya baan ma sheegayaa laakiin anigu markaan ilmaha soo tahniyadeeyey intii aragtay way aragtay walaa waa ina nimcaan walaa waa ina ismaaciil kuma soo qoran amiir anaa sideedii intii hooyanimo aan kuuri amiir hooyo kusoo dhawow duni saasa wax kasta naadaan ku siistay ilmihii markuu ii dhashay ayuu wax kasta isbedelay okay ilmihii markaan soo tahniyadeeyey ayaan kuuri waa tii layga laadlaadsamay kuwa dad ii xiga bay caynayay sanbay ahaydee ilmuhu waa sidanee ilmuhu waa kanee guri cidlaabaan kaliga jiifa weligii ilma layma dhiibin weligii ilma layguma halaynin tababar hooyo ma haysto layma odhan sidaasaa ilma la dhahaa iyo qaabkaasaa la dhahaa samaad garan
ما بقى ستريس كلمة أود كهرباء حتى أنا هالكاس اللي سكيكي اللي الماء الشاق هاي لا قرني ساعة وحلا قرني وحبا كتير واكا بوق بالله يغفر والله هذا ورالو بانري ورالو المهن إن الشيء ما بيني ما كان العينيو شاق مركاب وحود هاي مركا hadduu sheego wuxuu yiri wax badan baan ku weynayaa oo way ii soo gelisay noloshan xaalad waay kartaa wuxuu igu yiri ciidimaanta ma oga saas baan ku aamuskin moodka sidaa ku gal war maanu leeyaynayaan mood kala nimcaan aan ma galeeyo aan was ceeb tiraya okay videogii waatan soo dhigay markaas ayaan ogaaday nimcaan inuu wax kala damacsanaa balanbalkii iyo inuu xamar ugu dhex balanbaliyay iyo inuu hargeysay waxaan ku halkaas sometimes baa waxa dhacday aniga de qof kale kare kama sugo asagan ka sugay ayuu markuu doonana soo diraayay markuu doon telefoonkana igama baxayo habeen email kolkaas gurigiisa sonkorta halka dhigtaan aqaana habeen email kolkaas igu jira wuu ilaalinaya ma ogola inaan waxday aniga wixii soo kordhayaan oo nidhaado waxbaan sameynaya ma ogola okay waxay sheeko sidii ahaataba war waatan soo dhigtay qoraal layga daba keenay markaas baan anigu baraarugay aan sirxiisay meeshan waxba kuma yaalaan Soomaalida waxay yaqaan waxan itus oo itaabsi cadayntaada reebo haddaan handadaad haysto haddaan wax kasta haysto haddaan ku dhashayna wax qaar waxay igu caroonayaan nimcaan oo cadowgeygii ahaaba u tagtay anu laba dhan baan ku dhex dhintay kuwii nimcaan waxaan ku hori muxuu ahaay isaga difaaci jirayna aniga cadowga ii arkayaan ana leecaynay waa foosto alla kuwii aniga aan ka dhashayna waxay leeyihiin maxaa ku geeyay ninka cadowga ah ninka sidan aniga calanku u wato waxba igama gelin بلوغ باتشده أخطر دوّته في جمجلين نفتي داس وحي راعسان راعي سماها إن كانوا دولة من هيسن أنا وحنكوري مش هانو لشو كدش ونين سومالاندرا أنا وش شيء أنا ومان أركينين سمعت كرن حتى داس ندوما أركو نين سمرون سعيدة وين عذيركي ملك استوتشوجا بقى يوين عذيرتي ما أنت نوان هيستا أنا قولي يشوجا meel la kala jiraa ma jirto okay waxay sidii ahaataba qoraalkii baa layga soo daba qoray qoraalkii markii layga soo daba qoray ayaan anigu cadeymahayga waxayga meel diyaarsadoon dhigtay laakiin intaa wandigay intaan maqnaa imisaanadu ku waan hadlayaa war ana xamar ku balanbaliyo furash ku jiifa oo gaajoonay oo aan guri meeshaas waxba ii dhigin oo halkaas wax kasta ii sii dheerin oo aan qof ka garanaynin oo hargeysa halkaas aan isqarinayo oo igu dadkoo dhan iska qari dadka ka dhaxbax meel ma tago wallahi inaan qofna ila soo hadlin meel la aanan tagin ayuu ilaahay marqaati iiga yahay anu wuxuu igu furay أنا بركر problem بان هيستي سجال problem أو أنا قاعد كريم بيقفري هل كنا ويقولش هيا رشوا يقولين يا دونكم كوكش على قف كنا الله شيء دبات يصير كلام تاعي أذوق إلى هالجن أذوق واك هالجن كوح ويان حق علمي سينا كوه هالجن أنا كن دللا يقص قاعده قفنا وقف مج على قفنا وقف لقطرو إن عيب لا يقطرو أي دوني يعني معان السجنا إنه آمصا سمعت كرن dadkana u dafiro qofkii bareefad la kulmanay raahdo maana ilma boo dhalaynta maana aqaanaba ina yaroon caawinayay bay ahayd ina yaroon caawinayay ayay ahayd Soomaali Maxamede aniga markuu halkan igala hadlayna maana iri noloshaydii waa kan halkan iraahdo WhatsApp kan inuu habeen iyo maalin ii saarnaado sharaftayda markay taagan tahay iyo markaan hiil u baahan inuu iga hiiliyo nimcaan أيوة مبسوط يا بكو يا هاي حلبان رادي هدي إيه الكوكتها هدي عتها شيء كذا ما أنت هالكاتاجر عاون هالكافردية
انت سو بلود أيا وحن يعني قارن ما تهلكي تاجن تحي يعني إيمان حيسة يعني ما تهلكي تاجن تشي كذا قاري ولا أو هنتي تشوشيا بليز أو هنتي قدايا وانا دمبريا شيء كذا ما تهلكي تاجن حيسة يعني تاجنان تنازل أوكي قوليه ريرك يجاها وحيجوا هنتدين عرض ما هالكرتيد أنا قاسم كوسمينا حنعابين وادنا عابين لكن ما أنتوا حندون يا سومالي محمد تنان كرتيد أسوديبتو أنا جينا سوماليات بانهاي نان هويا بانهاي أو المهدي عيب لو قلت ريا بانهاي وحنا هويا المهدي دفاع سا وحنا هويا لقى وحن كل لقى أود بديي أود كبدن لصاري هريرها لقى قليبان هاي عل كابدن يبيه كابدن بوه كهفيان بس ما لدو ترى هذا عل كابدن يبيه كابدن با ويكهفيان أي سومالي ترى هذا إيدي حبني مخشينة يا وكابو بسيط بقول توت كسر مرة لقى مدري سنين وحنا سيا كل ده كان كشكني عاو قربان دوني مي وحا أن عاو سميجي ارتوان كحضر دارنيا ما نش على سن أنا الماء جابين تانا كاس كسفر السنة أنا لا شافات شرقو قلنا لدوبو لكن وحن دونيا إننا نولان إنك على أن رجنا نلاش كما قبو أنا ورجو نلاش كما قبو لكن waxaan rabaa ilmahaygu inuu daawado in aan u hiilinaya in anigu aanan ka hiilinay inaan u hiiliyay inuu ilmahaygu daawado bari amiir markuu weynaado waxaan rabaa inuu arko hooyadii soo samirtay hooyadii in la dulmay hooyadii inay aan ka hiilinay hooyadii u hiilisay xaqeedii u doontay kii igu nacayaan haddii igu nacay kii igu jeclaanayaan igu jeclaanayo nimcaan wuxuu rabaa عرتيسا كلنا إن لا أقعدوا كنا ينهوس كو أقعدوا قرية because كان باسبور ما هيستو لعق ما هيستو كني لعقتو تدكوا إسبرتا لعقتو تدكوا إسبرتا أنا جو باسبور ما هيستو لعق ما هيستو ميل وحن كل متشهجو سمات كرن وحبكم معاون كرو مركوا أنا جو نندل مجقاتا أنا هلا يدلمو لكن ويل باندلي بقول باندلي بريت هذا الشكل اللي يجي لي مدونيو وحنا ولقي كفكر وقف ابن عادنا ولقي أحبك مطوبين والله أنا ولقي أحكتبن بالله أنا كتبن والله أنا كتبن حتى أنا كان مطوبين إلهو كنسل جردنا أنا مطوبين أصغر كاي قالها الله يا كابني من فيديو كل كي سارن أيه أنا صاحبة ضيا عقلي جمانتي قلت له وكان أنا ما أنت ينفعي أنا جاي يقوم تشرين أيه يقولون شرتي أنا كسرنا ودق مايا نحن كسرنا ودق مايا نبرك موحي دارا كسر السعودية وان كديدنا مايا كم صورتك شو حيث مين شرتي تلفون كنت فتي سيء دقيق شرتي أما اسكي كواك سو أكثر سين شرتي حلكي أبدين وحاس أردن ويان وعدي ما هيجو كشرتهم أو نسكت دفاعي كري أو واحد دون سمين كري بانجو بني مقاطع سومالية كون المهجة مالو دقي واللي بينهم تاع سومالية أي قرتي والله عقل جاساني يجو متشرو حين يهنكو كوجرة ما بالي وأقول ولا قرب تاعي هاي وقتن ما تيجو دعوة كره عد كان قدام بيا عد يديش دي wareerkiisu caynaya dhulbaanta hooyadooda ka wasaan inantuu qabaa dhulbaantaa yareerkooda kuwa caynaya waa kuwaas aniguna kuwaan u hiilinaya oon isleeyahay ha dhisnaadaan waa kuwaas aniga halkaas baan kala taaganahay aniga isaga farqigaas baa noo dhexeeya kuwaas weeyaan anna waxaan leeyahay gobonimada qaado ayaduna ma oga inaan xog hayo in ma oga habeen iyo maalin halkan gurigeedu ku gubto aniga la iga sheekaynayo ma oga waxay leedahay yana yaro
kal adu ka badisi weeyaan oo waxa weeyaan dayacaan oo balanbalsan oo saa doonta aad ka yeeshay weeyaan aniguna halkan habeenimo maalin gala hadlay habeenimo maalin nin gabadhiisa jarjaraya gabadhiisa xamanaya gabadhiisa waxay tahay sheegay wax badan baan rabay inaan halkan ka shido laakiin lagu kala guurayo laakiin ma rabo inaan reer dumiyo laakiin halkan ma fariin rabo inaan mariyo wallahi inaan rabin still ma rabo in reer dumo still ma rabo Soomaaliya aniga waa lay dulmay xaqi ilmahayga maqan ilmahayga waxaanu ahayn baa laga dhigay waa lay takooray ceeb aanan lahayn baa dhakada layga saaray ceeb aanan lahayn ayaa dhakada isaguna fiktan buu xoqday halkaasaa mud alla markaasaa inaan tan maxaa haya aniga wax way hayaan because anigu waxbaan tabanayaa ehelkiisii baa iga hiiliyey samaad garan oo gabadhaa u hiiliyey oo leh aniga reer ahaan in cuqdad kale layga dhex raadiyo laakiin godob meel kastay taallaa ilaahay waana qafuur raxiim waana shadiidul ciqaab anigu maanta tii mustaqbalkayga ahayd ee dhalinyarnimo way gubatay waasaan aaminsanahay oo waxay ku gubatay waxaan anigu isku geystay aanan ninna u eersanayn ayaa igu dhacay inanka aan xidid mooday aan walaal mooday ayaa noloshaydii god ku riday iminkana igu jeesaya meel kastana arrinkayga ka dafireen xoogtiisa sidaa u haayo لأن mid baan kuu sheegayaa anigu Soomaaliya hadalkayga waa duubayseen maanta oo dhan qof basi buu qaadan doona qof basi buu odhan doona ana horta madama ma soo hadlayo duco baan u baahanahay ilmahayga inaad ogaataan ayaan u baahanahay ana nolosha ma rabo ma doonayo laakiin ilmahayga yar inaad ogaataan ood iigu dacaysaan oo aan la iga caayin baan doonayaa anuu haddii nin aan guursaday in adeerkaya xumeeyey oo iga qabyaaladeeyey oo iga hiiliyey oo Soomaali Maxamed ka dhigaya inaan ahaynan yaroo sheeganaysa waa kaan nimca waa kaan xogtiisa saa u qoray hadda xataa aan daboolayo warkiisa weeyaan ka warkiisa daboolayo weeyaan haddaan rabo in la daawado haddaan fiis rabo maalintii warkayga taagnaa aan hadli lahaa maalintii xaaladii cirka mareysay baan hadli lahaa aniga ilmahayga la dulmo Soomaaliye oo ceeb aanan lahayn dhakada la iga saaro idinkuna ay iigu sii dartaan oo tiraadaan maxaa sidan iyo sidana miyaan mutaystay anigu Soomaaliye miyaan mutaystay والله waxyaabaha qaaran hayo والله ثم والله nin garanaya loogu dhaartay aan haddaan halka ka shido iska daar reer ay Soomaali Maxamed ku kala dhimanayaan
ayaa jirta inankaas laakiin waa weli waa amiir aabihii waxaan leeyahay inankaagu yaanu ku daawan maalin maalma ka mida laakiin inankaagu ha daawado wuxuu aabaha sameeyey aniga muhiima in reerkiisu dumo muhiima maaha inuu Soomaali Maxamed wax ka dhexdhacaan muhiima maaha inaan kaliya anuu halka caawo ilmahayga ceeb tirto ninna waa nin lagu tiro ninna waa nin ceeb tale Soomaalidan garan halkan maanta imanayo xataa noloshii dadkii gacanta ku hayay hadaad hadasho baa liigu yiri oo ku kala dhimanayna waxaan doorbiday inaan isaga u hiiliyo baantan ogaaday ilmahayga inaan waxba u qaban karaynina isaga ilaahayna ilmahayga iskaga tago Soomaali Maxamed waxa soo dhan waxay ugu dhacayaan aan waxana inan bilaa hooyo ah waxana inan aan haysan cid u hiilisa qof hooyo haysta qof hooyo ag joogto ma ooye imka inta halka idin kala hadlay ilmahayga waa ka go'anta ma seexdo wanaag baan ku bariyay war ilmaha ila biil war ilmaha sidan samee markuu arkay isiri gabadhan ima oga maanta waxaan hayeen macaan waa wuxuu saa u sameeyay hadduu maanta wanaag baan ku dayay tol baan ku dayay xidid baan ku dayay ilaahay baan ku dayay maanta way ka firsan weydeen halkaas soo fariisto ogahayna qaar badan igu farxaya ogahayna qaar badan markaan ka dago ifalaqayn doonaan qofka idulma qofka waxaan ahayn dulmiga wallahi ma afin doonin oo yawmal qiyaamaha tan waa laga tagayaa inaan luxudka idin fadhiyo anigu qaar badan ayaa halkaas oran doona waxay sidan u sameynaysaa waxaan saa u sameynayaa ina yaro kaligeeda baanahay ina yaro kaligeed silcaysa baanahay Soomaali Maxamedey ninkii dhibta ay geysan halkaas uu heesaya baashaalaya kama qasna ana guri baan ku dhex balanbalaya cid warkayga ogeyn oo cid ii damqanaynin Soomaalidan garan habeen kasta halkaasaan oonaya ay ilmahayga muqdad baan ku koriyaa hooy caafimaad macayda lay caynayaan ku koriyaa mise dulmiga ilmahayga laga gelayaan ku koriyaa idinkaan idin gardhigtay idinkaan maanta family idinka soo doorbiday idinkaan gartayda idin dhiibtay Soomaali Maxamedey oonan qabiil saarnayn gabadho hooyo idinla hadlayso hooyo la dulmay oo awow ilaa ka asir la dulmay ninka hareerkiisu ay iisii dheer tahay aflagaada iisii dheer tahay boota iisii dheer tahay oon qariyay oon aamusay Soomaalidan garan Soomaaliye haddaanan saa samaynin cadaymahaas yaa i aaminaya yaa i rumaysanaya albaabka laygama furayo ilmahayga